haddaba si loo gaaro ujeedadaas Hormuud Telecom iyo portfoliodeeda waxay had iyo jeer xil iska saaraan sidii wadanka looga heli lahaa adeegyo fududeeya nolosha dadka Soomaaliyeed ee aan u wada shaqeyno. Tusaale ahaan adeega EVC Plus waxaa si bilaash ah ku isticmaala 73% dadka ka weyn 16 sano rag iyo dumar. Arrintaas waxay sababtay in dadka Soomaaliyeed ay si fudud ku helaan adeeg maaliyadeed oo tayo sare leh oo bilaash ah. Sidaas darteed Soomaaliya waxay meel sare kaga jirtaa financial inclusion oo kamid ah hadafyada ama targetyada qaramada midoobay ay u dejisay wadamada soo koraya si loogu cabiro dhaqaalahooda. Financial inclusion waxa asaas u ah in la helo adeeg maaliyadeed oo bilaash ah ama raqiis ah lagana helo goob walba ama qof walba muwaadin ah oo fursad u helo in uu adeeg maaliyadeed helo si noloshiisa ay ugu fududaato. Soomaaliya waxay bartaa waxyaabo la yiraahdo environmental shocks oo ah abaaro iyo fatahaado isxigxiga. Runtii arrimahaas ama shockskaas waxay ku keenaan dad badan oo nugul in ay barakacaan. Siyaabaha ugu fudud ee maanta ay ku helaan deeq ama kaalmo waa in ay helaan adeeg maaliyadeed. Arrimahaas waxaa u suurtageliyay adeega EVC Plus. Dhanka kale markaad fiiriso isgaarsiinta Soomaaliya xaggee kaga jirtaa marka loo barbar dhigo ama benchmarking la sameeyo wadamada ku yaala gobolka bariga Afrika. Tusaale ahaan halka GB ee mobile data ah wadanka Kenya wuxuu ka joogaa $3, halka GB ee data ah wadanka Djibouti wuxuu ka joogaa $10 iyo wax ka badan, halka GB ee data ah wadanka Ethiopia wuxuu ka joogaa $5 iyo wax ka badan. Soomaaliya halka GB waa $1 mararka qaar sida jimcooyinka shirkadaheena waxay sameeyaan ofaro $1 qofka uu ku heli karo 2 GB. Shirkadda Hormuud Telecomna waxay diyaar u tahay in ay kala qayb qaadato jaamacadaha iyo sektarada kale horumarintaas iyo iskaashigaas la xiriira in Soomaaliya teknolojiyadeeda ama science-ka, technology-ga, engineering-ka kor loo qaado. Waa mahadsantihiin.